المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان وبصومها وصلاتها تزداد بالحسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، waxaan ku soo guday jiray axkaamtii sawmka. Fadhigana waa fadhigeennii afraad. Waxaynu insha allahu tacaala wax ka odhan doonaa arkaanu sawm, sawmka iyo arkaanta uu leeyahay. Arkaan waa jamcu ruknin. Rukniga marka laga hadlayo waxaa la yihahdaa waa juzu lmaahiya ama juzu dhaat. Shaygaa laga hadlayo shay xaqiiqadiisu ka mid yahay, daatada shaygaas ayuu ka mid yahay. والركن جزء الذات والشرط خرج وكيلها. marka waxa weeye shaygan shardigu waa khaarijka ayuu yahay ku dhacaya, kana maahiyada iyo xaqiiqada shayga laga hadlay ku dhacaya. Marka soomka arkaantiisa laba ayaa u asala, oo niyada iyo qofka oo ka afhaysta waxyaabaha soonka jebinaya. laakiin fuqahada madhabka shaafici waxa kale ku daraan as-saa'im bay ku daraan, as-saa'im oo qofkii soomanaa ah. marka hadda iyada saa'imka ka hadalkiisu wax badan oo baahna, oo qofka sooman shuruudaynu hadda ka soo hadlaynay oo hore uga soo hadlay fadhiyadii hore, oo ama shardu wujuub ama shardu six ahaa. qofkii soomaya halkaas ka soo baxay, oo hadda halkaas baad ugu noqonaysaa. laakiin niyadu ayaa waxay tahay rukni arkaanta soomka ah. cibaado kasta oo la samaynayana niye ayaa markaa arkaanteedii ka mid ah. qaarkoodna shardi bay geliyaan. marka niyadu ilaahay baana quraankiisa ku sheegay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin, iyo xadiidka rasuulku inama alacmaalu binniyaat. waxaa lay faray un acmaashu waxay ka ansaxaysaa niyada ayay ku ansaxdaa. marka qofkii inuu niyoodo bishii ramadaan markuu soomayo ayaa la doonaya. marka niyadaasi shuruud bay leedahay, oo niyadii sugmi mayso ilaa shuruuddaa la helo. shuruuddaa waxaa kow ka ah التبييت، inuu ku baryo niyada. waxaa la doonaya habeen walba oo aad soomayso bisha ramadaan inaad niyeysata ayaa la doonaya. weliba niyadaasi soom ramadaan oo keliya ma aha, waa soom kasta, waa soom kasta oo waajib ah. waa soomkii ramadaan buu noqon karaa, soomkii kafaarada ah buu noqon karaa, soomkii qadaha ah buu noqon karaa, soomkii nadarka ah buu noqon karaa, soomkii fidyadii xajka ayuu noqon karaa. marka soom kasta oo waajib ah waxaa la doonaya qofku marka gabalku dhaco ilaa inta waagu ka baryay inta udhaxaysa inuu niyeysto ayaa la doonaya. waxaa hadda in carabka laga dhawaaqa shardi maaha, waxa weeye niyada ayuu ka niyoonaya oo la imanaya. rasuulkeena maxamed ahna salawaatu ullahi wasalam alay xadis wuxuu ku leeyahay man lam yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu. xadiidka abu daawuud wariyey. qofka aan ku baryin soom aan ku seexanin oo niyadiisa ku baryin soom uma sugnaanin ayuu rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. marka waxa weeyaan niyadaas ayaa la doonaya, waayo maalin kasta waa cibaado. soomkaasi sida salaadoo kale ma aha. maalin kasta yoomkeedu waa cibaada mustaqila, oo waxaa laga yaaba ayaaman inuu soomo, ayaamo kalena uu dee safar ba yahay oo qada looga doonayo. marka maalin kasta soomkeedu waa madax bannaan yahay. marka in habeen walba sida loo niyoodo ayaa la rabaa. qofku dee niyadu siyaa badan bay ku sugmi kartaa, oo dee mar hadduu niyeystay marka uu kacayo waxaa la yihahdo suxuurtii oo 3 habeennimo ama 2 habeennimo uu kacayo oo raashin ka cunayo oo diyaarsanayo oo dee waa niyeysan yahay. marka waa muhim inuu qofku niyadaas ay qalbiga ka soo goodo ayaa laga doonaya. weliba waxa weeyaan, laakiin marka laga hadlayo soonka tadawuca ah, soonka sunnaha isaga niyadiisu waxba inuu habeennimo ku barya shardi maaha. inuu habeennimo ku barya shardi maaha, wuxuu niyeysan karaa zawaalka wixii ka horeeya oo dhan. barqadu iska niyeysan karaa, saacada subaxdeedu iska niyeysan karaa. waxa weeyaan haddii aanu waxba cunin oo waxyaabihii muftiraadka aanu la imanin, inuu barqadaba iska niyeysto isagoo iska afhaystay maalnimadiiba soonkii sunnaha ahaa, iyadu waa iska banaantay. waa xadiidka caaisha ee u daliilo. waxay tiri caaisha qaala lii rasuulu llahi sal lla alay slm daata yowmin, maalin maalmaha ka mid a rasul wuxuu ku yidhi yaa caaisha hal cindakum shayun, wax ma haysaan? faqultu yaa rasuul allahi maa cindanaa shayun. markaa maalinibu u yimi
subaxnimo u yimi wax ma haysaan waxba ma hayna bay ku tiri cunaha rasuulka ilaahdo qaala fa inii saa'imun waan soomanay buuhi waan soomanay marka de waxa weeyaan mar hadduu qofku aanu wax kaloo cili aanay jirin qofkii dumar ahayd ay daahir tahay aan waxba la cunin barqadii soonkii sunnaha waa la iska niyeysan karaa tacyiinku markaa waa ka mid shuruuda waxa la yidhaahdo soonka niyadiisa tacyiin waxa la yidhahdo oo tacyiinkaas waxa weeyaan inuu niyeysto soomkii ramadaanka inuu soomayo soon qadaa markuu soomayo inuu soon qadaa niyeysto soonka faaraguda inuu niyeysto waxba fardiyada in loo tacarudaa waxba shardi maa lakin waxa weeyaan waxa la yidhaahdo tacyiinka oo noocaas inuu soon maaragtay uu soomayo berito oo kale haddii soonku nadar iyo soon nadar inuu soomayo berito oo kale inuu ku seexdo soon kafaara inuu la imanayo inuu niyeysto ta noocaasi waxa weeyaan waa shay waxa weeyaan shardiga kamida niyada waxaa kaloo kamida takraar baa kamid ah oo habeen kasta oo ramadaanta kamid ah in la soo celceliyo niyadii oo aadan ku kaaftoomin habeenka horeysay aad niyeystay ramadaanta bilowgeeda taasina kaafi maaha habeen walba waxaa lagaa doonaya saynu sheegnay waa cibaada mustaqila habeen walba inaad la timaado soonkii oo aad niyeysato ayaa lagaa doonaya rukniga saddexaad wuxuu noqonayaa haddaynu asaaimka kasoo qaadno rukni asaaim qofkii soomanaa iyo niyadii qofku inuu ka afhaysto waxyaabihii muftiraadka ahaa ee soonka afurinaya qofka jebinaya dhammaantoodba waa inuu ka haystaa marka waagu beriyo oo fajru saadiq fajriga la yidhaahdo oo waaga berigiisa fajrigaas intishaaraya sida gudban u dilaaca sida intishaaraya waaga ee faafaya ee iftiinku ka dambaynaya badan kaasa waxa fajru saadiq waagaasi markuu beriyo waxaa la doonaya qofkii muslimka ahaa waktigaa laga bilaabo ilaa inta gabal ku dhacayo inuu afhaysta ayaa laga doonaya fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri ثuma atimu siyaama ilى اleyl waa kaa yihi subxaanaه watacaala waxa wy rasulka ida aqbala leylu min haahuna waadbara الnahaaru min haahuna faqad afطara الsaa'im marka xiliyadaasoo dhan qofku wuu is ilaalinaya waana niyada ayaa noqonaysaa inuu iska ilaaliyo waxyaabihii muftiraadka baan leeyahay ee soon ka burinayey oo inu insha allahu ka hadli doono maxaa muftiraatu sawm ah maxaa soonka qof mufsidaatu sawm maxaa noqonaya maxaa ka jebinaya insha allahu tacaala way inoo iman doontaa ilahay waxaan ka barinaya subxaanahu watacaala inuu soonka naga aqbalo acmaasheena khaalisan liwajhi u ka yeelo allahuma aamiin aamiin wsala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam